hooyo soo hodana qalka kuma jirta maxaad ugu xidhaysaa haa hooyo iyadaa igu tiri albaabka dushaygaga xidh oo miyaanay saaka yaasmiin raacayn saaka anaaba degdegaye waan arkaa inaad kala haysee ma hawl badma maanta dukaankii taallay nin farsamayaqaanaa meelii taagan oon dukaankii geynayo yaasmiine haddiiba farsamayaqaan dukaanka looga baahan yahay maad anigii qortid oo adigu miyaad garanaysaa sida sariiraha iyo kuraasta fadhiga iyo kuwa cuntada loo xidhxidho oo ma intaasaa cilmi u baahan haddaad fuundinimo inaad ku shaqayso doonayso goor horaad baran lahayd ood ku shaqayn lahayd iminka dukaanka gee sida hodan ninka aad sheegayso waxaa ka bartay igadaa hooyo haddaan hodan halkaa ugu tago waxba baran maaye adaan faysaloon u jeedin inaad shaqaysatid hadduu inankani baran lahaa shaqooyin kala duwan halkan imuu fadhiyeen waxaan rajaynayaa shahaadadeeda jaamacadda inaan shaqo ku helo walaal adigaan shaqa doon ahayn waayo dhallinyaro badan ayaa hadda shaqooyin yarar ka haya suuqa oo weliba jaamacadda ka baxay hadhowna hadday fursad shaqo soo baxdo shahaadadaadunbaad geysanaysa ooyo ninkan hadduu meel iska soo saarayo lacagtii fargashigaagii ayuu wax ka soo saari lahaa bal hadda eega balsug faysalow waxaad ii sheegtaa $60 eed fargashigayga ku iibisay sidaa tiri hooyo sawtaan xadhkaha iyo galalka telefoonada aan ku soo iibsaday xadhkahaasoo maad sii iibinayn aaway lacagta ka soo saartay waxaa la qaatay in hodan lacagtaa loo dhiibo wuxuunbay ka soo saari lahayd lacagtaa faysalow halkeed maris anigu adigoo xadhka telefoonsitana ma arag lacagna kuguma arag bal aniga iyo walaashaa saaka wuxuu nagu qanci hooyo xadhkaha iyo telefoonno jabanoo soo iibiyeyba way yaallaan suuq baan laakiin loo helin sidaan u sii iibiyo igadaa lacagtaasi way khasaartay hooyo fargashi qaali anaa ku soo iibin doonaa waa ballan hooyo shaqa uun ha timaado astaaqfirullah ma ninkaaga dadaalka yar walaal ma iminkaa dalata ha ee dhegayso waar farsamayaqaankii baan ka raagayay nabadey hooyo nabadey hodan miyaad ka tegaysaa soo soco walaal siidow carruurda maasha allah waaye ad maa le yaasmiin haa iidaa iska leh siidow aan qofkan ku baro waa maano waa gabadha carwada iska leh see ahaanne iidana waxayba dhowaysaaba yaasmiin aa iska leh anaa ku dhahaaya maana ayaa iska leh saas weeye haddii isku tuutur ay noqotay anaab iskale carwadan saasaan kaa rabaa yaasmiin waa maqlaysaa haddaaba dhex joogtid adaa leh laakiin maana ayaa halkan maamusha fariid maanoy farsamayaqaankeenni weeye ninkan ninkan koo igu cusubba maaha wejigiisa aygu yaallo adigana hadda lee ka dartay see camal wejigeega maaba kugu yaalaa kaftanka inoo joojiya haddaba siidow sidaan kuu sheegay maana ayaa carwadan iska leh aniguna waan maamulaa adna waxaannu kaa doonaynaa inaad nala shaqayso sidii aad ii soo sheegtay le mooho fuuntii waxaas qaban lahaa lee ma qabanoo hayo runtaada waaye carwadan shaqada taallo waxaa waaye sariirahan iyo kuraastan rakibowgooda iyo furowgooda markay alaab cusub timaado waad xidhxidhaysaa marka dad iibsadaanna xaafadahooda ayaad igu soo xidhxidhaysaa shaqada xamaaliga ku jirtaa mooho laasim waaye hawsha adaa iska leh ee maanay ka waran siidow horta waana anfacaa siidow lacagta le in laga heshiiye maaho hore waan kuugu sheegay isagana waannu isla garannay in lacag yar aynu siinno waana anfacee iyo kas yar oo beesahan siinayn asay isku keenay ab jooga looma adeegee siidow bal ka waran horta gabdho shaqaysanhaay aad tihiin waxaad rabtaan aa isiinaysiin wixii kalena anaa ku darsahaayo ma fahmin warkaas siidow u jilciyaa ku fahamtay dadka sariiraha iyo fadhiga uu soo xidhxidhaayo beesaan ka qaataa ka warramaba dadka uu alaabta u rarayo una soo xidhxidhayo ayuu khidmad ka qaadanaya aadaas u fahmay waana qaatay haddaba siidow maanta ayay hawshu kaaga bilaabmaysaa maana ayaana gooni kuula heshiin doonta siidow halkoo su'aal ma ku warsan karaa gee kuuga yaraanin toma ma ka dhigo siidow adi horta xaas ma qabtaa 1 2 3 4 hooyo saafiya waa 10 kun ee qasnada inoogu xaree kan hooyana inoogu xareynayeen haye bal ka waran sidaan ugu kala saaray fargashidan dahabka yar yar iyo waaweynba waa nashqadii u dambeeyay alla ilaahay ilaa shalayba wax kala saaro way u baahnaayeen aad ayay u qurux badan yihiin hooyo dadku ma iibsadaana si fiican buu u socdaa hooyo weliba gobolada kan baa aad looga jecel yahay dooqaaga hooyo cajiib buu ahaa ilaa berigii aan yaraa salaamu calaykum waa duhuro malaha waad sii xidhayseen be maya weli waanu shaqaynaynaa soo dhawow maxaan kaa iibinaa soo dhawow walaal maxaad u baahnay halkan muraayadda waad ka aragtaa waad ka dooran kadhaa nooca dahabkeed u baahan tahay maasha allah dee kani dahab iyo maaha aad buu u qurux badan yahay anu walaal waxaan u baahanahay 2 dhagood oo yaryar oo 2 garaama dahabka xaggan xiga ayaa yaryarkii ahe ka doora habar yar dhagahan baa 2 garaame oo muraayadda isku eg walaal magacaagii muxuu ahaa maasha allah kuwan aad iyo aad bay dee u qurux badan yihiin walaal aniga isir baa la yidhaahdaa
inantana waa inantaydii oo waa saafi maasha allah aad ayay kuugu soo baxeen magaca adigana habo anigana waxaa la yidhaahdaa maryan maasha allah dee kuwan u dhaafi maayo isire waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay sida inantaadu ganacsiga kaaga caawinay dhowaan bay walaal dalka timi mid kale iyaduna jirta ikraan laydhaa oo waxay leedahay dukaan la yidhaahda ikraan bila walaal qiimuhu 4 9 un bixi isire walaala waad mahadsantay oo kaalay ma ikraan baad dhashay cudurka kaagala fardaha haddii laga gubo dameer dawada lama gaadhayo anoon weli ku gadbixiniyo gidheer bay saaran tahay heestaa inaad ilowday baan moodayay maryanay waqti hore ayaad igu soo celisay iyo heesihii sawniga iminkaba kuu heesa dhagahaad iga furaysataye iminka maadigaa hees ba haleela dartaa ayaan u dhegaysan jiray berigii cajaladaas dartaa ayaan usoo duubtay maryanay rikoodhkan berigii hadiyadda kuugu keenay miyaad ku dhegaysan jirtay haa alla rikoodhkaa maxaan ku riyey xitaa idaacadda afka ingiriiska ayaan ka dhegaysan jiray oo horta rikoodhkaa halkeed ka tuurtay beri dambe ayay igaga dhegtay islaani eedda ahoo baadiyaa ka timid dabeetana waan siiyey baadiyaha ayaa looga baahnaa bahalkaas iyagaa wararka iyo idaacadaha u baahan haaye waa maxay maanta dharkaad xilligan maydhaysaa maryanay cabdi oo laguu taag heli maayo marna dee dhar layma maydho dhaho mikrofoonka qaado marna maxaa dharka saacaddan loo maydhayaa nagu dhig dee waaba gabaldhace xilli may qalanayaan dharkaad imika maydhaa xilli kale ma haleelaye subaxdaba ha qalalaan subaxda horeba maryanay waad maydhi lahayd waar heedhe aniga dharmaydhkaygan iska dhaafo adigu xilligan halkeed cadarka isugu soo jebisay ma cadar ayaa iga uraya haa waaba shakiyey xaggeed u socotaa niman baan caawa la ballansanahay cabdiyow ma kii cali baad u tegaysaa maya ninkaas iminka isma raacno baga mar haddaad ninkaa iskaga hadhay waa alxamdulilah saaxiibtinimadiisu wax faa'iida ay nooma soo wado salaanta uma dhaafiyo sheekada dadka isla jaan qaadi karaa inay saaxiibaan baa wanaagsan waa run haddii kala horumar gaadhi mayno dadka aynu la saaxiibaynaa saamayn bay nagu leeyihin haa waa saxe haddaanad cali u tegaynin yaa kaleed la ballansantahay kollay aniga waxbaad iga qaranaysaa maya qaris ma jiro siidow ayaan la ballansanahay isaga ayaan caawa la soo caweynaya siidow waa nin wanaagsan oo xaaskiisa la shaqeeya oo taageera waa nin anigoo kale ah soo maaha cabdiyow aniga wax ma kuu sheegaa caawa cadarkaasi yaanu dab inoo soo jiidin imikaba dab maxaya gacaliso gabdhahaygii waaye aabbo maqribkaan intee ka timaadeen aabe waxaanu isnidhi abbiin u tago la soo yar sheekaysta aad aan ugu farxay araggiinna aabbo soo fadhiista hoo aabbo inantaadii saafi baa hadyadan kuu keentaye baldhigo kolle dookhayga gaari mahayse labadiinnaba waad dooq fiican tihiin maasha allah kabo shaati suun yaaba heli kara aabbo na saafi maxaad la aamustay walaalle run waaye saafi maxaa ka fakarowsaa aabbe aabbaheedhe waxaan ka xumahay nolosha kanaad ku jidho meesha aad dhex jiifto igraan maxaad nolosha aabbo sida tan ugu eegta naheedhe walaalle haddaan ciiddii jaamaca ka fariisiiyey isagoo dhar qaaliya gashan miyaan yaraystay saafi taa ka hadli maayee waxaan ka hadlahayaa qolkan uu ku nool yahay bal eeg sida uu egyahay baayo aabba isaga iga markhaati ah intii karaankayga waxba kalama harin kuma lihin walaalle waad hagratay ee haddaan nolosheenna barbar dhigno ta aabbe sow qoomamo maaha haa laakiin walaalle nolosha aynu ku jidhno waa mid kelinimo hooyadeen ku soo tabacday ma sidan si ka duwan baan ku noolaan lahayn waan ogahay balse haddana aabbaheen fiirtuu ku nool yahay ma yaraysan mana yaraysan karahaayo aabba noloshiisa inaan wax ka beddelan haddeerba diyaar baanu ahay aabba may maqloysin aabbo cabbaaraa aniga noloshayda ka hadlayseen murugta ay idinku hayso waa ka saa laakiin aabbe ma waanay ceeb nagu ahayn dhibta ku haysata dhib ilaahay ha naga koriyo aniga hadda waa yeelnimo maahee wax kale oo dhib a ima hayaan naheedhe saafi aabba alxamdulilah waa caafimaad qabaa guriga kanna uma arko inuu ku liito mid aan idin sheegaa aniga waxaaba ii qurux badan nolosha aa ku jirtaan oo aad aan ugu faraxsanahay aabba waad mahadsan tahay ikraan baan ka wada hadli doonnaa waxa aan kuu qaban karno sidan ma eegan kara haye ikraan intii wax ay ii qaban karto waa ii qabatee ganacsigeedana ilaaha barakeeyo aamiin aabe saafina aniga iyada ayaa wada tashan doonna insha allah sax ma sidan baa walaalle eegashaleh
rag isu yimid cawada qaraamiyaa lagu cawaynooyaa warsama ay tahee soo dhowow saas camal mar horaa kuugu dambaysi laakiin sidow iyo cabdi heestaan ma u malaynaysiin meel inay u socoto yay ku socotaa ayaad isleedahay warsamow yaa kalehe duqa isaga lee waaye ha u bixin warsamow soo dhowow soo dhowow yaaqaay waa dhowahay waxaan markhaati ka ahay inaad soo shaqaysateen marba haddaa alaabtan qaraamiga ku cawaynaysin shaqada ayaannu kaga nasanaynaaba warsamow horta waxaa ka nasanowsiin hawl badan ayaantaan qabateen hoosh maxaa waa xaaji warsame ayaantaan naagihiina u shaqaynaysaan aan maqlay horta adi maa lagu sheegeen xaaji shaqa waa sharaf miyaanad maqal sax waaye shaqo sharaf waaye dadka aan shaqaysanin war iyo xang meelahaas la fadhiyo naagaa in lala shaqeeyo shimay ceeb noqotay sheekadaas anaa gurigaygii ku waayee nimanyow naagihiinna kaalmeeya waa kasooyaa meeshaa u wadid horta arrinta furooga isir waa boobsiisi waa run hawshaa xaajigu wuu ku degdegay bini'aadamka nimcada ma arko isir in ay ganacsi gasho wax weyn ila noqoto waxoogaa baad u yarkaadin lahayd waxaa laga yaabaa inaad marka dambe xaqiiqada aragtide fiiribo cabdi xataa markii hore waa ku adkaati laakiin runtii markas arki waa kan hadda la shaqaynoo ahay xaaskiis tala maa isu kaa sheegaysahe isir ganacsigeedii hadda iga waranbo hadda shibdhe milyuumaad ay ku xisaabtamowsaa maba la helo iminka dahabka waddankaba iyadaa soo dejisa warkeedu waa maqli moole xataa inay dhisoo hayso waxaa jira 2 gabdhood oo ay ii dhashay kartideedii camal ay leeyihiin oo ma iyada ayay la shaqeeyaan maya mid waxbarasho ay ku jirtaa tan kalena ganacsi ay leedahay ay furatay dhalinyaro waayo moo haa aad ay u yar tahay dee gabdhaha waa inaan ku darraa nin la shaqeeya oo caawiya warsamow laakiin lama rabayaa oo adiga camal ay warsamay yaa adduunyo ma aha adduunyo waa loo joogaa taas warsamow adiga ma kula duulaan tagnaa oo ma ka shaqaynaa qorshihii israel ku soo celin lahayn